mahadsanid kusoo dhawaada wararka aanu idinka hayno bariga Afrika oo si toos ah idinka imanaya studio Kalsan TV oo ku leeyahay Nairobi warkan waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Igla Saalax wararka aanu idinka hayno bariga Afrika waxa kamid ah muhaajiriin u dhashay dalka Ethiopia ayaa la hor keenay maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya muhaajiriintan ayaa la sheegay inay ku sii jeedeen dalka Koonfur Afrika boqol rag oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa la hor keenay maxkamad ku taala magaalada Nairobi iyagoo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ku soo galeen dalkani Kenya raggan ayaa waxa ka muuqatay daal iyo dhibaato badan waxaana markii maxkamadda la hor keenay dhulka ku dhacay laba kamid oo suuxay iyagoo muddo halkaasi ku dhuumanayay guri laba qolo ku yaala deegaankaasi madaxa waaxda booliska Kenya ee ka hortaga dambiyada Master Katumo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay raggan yihiin soo galooti sharci darro ku soo galay dalkani Kenya una tahriibayeen dalka South Africa dacwadda ayaa bilaaban weyday kadib markii la waayay qof u turjuma maadaama aanay ku hadlin luqadan ahayn Axmaari waxa la filayaa in boqolkan qof ee u dhashay dalka Ethiopia maxkamadayntoodu dib u bilaabato bilowgii sanadkan ayay ahayd markii la qabtay 95 Ethiopiana kuwaasi oo lagu qabtay xuduudka dalka Kenya iyo Tanzania dawladda dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday inay darbi dheer ka dhisi doonto xuduudada u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya faafaynta qodobkaasina waxa magaalada Gaarisa inooga soo diray wariyaheena Faisal Isaaq dawladda dalka Kenya ayaa sheegtay in gidaar weyn ama darbi weyn oo dhererkiisu yahay ilaa 700 kilomitir ay ka dhisayso xuduud ay la wadaagto dalka Soomaaliya si loo adkeeyo amaanka dalkaasi loona xadeeyo weerarada ka imaanaya xarakada Al-Shabaab darbigan weyn oo ay dawladda ka dhisayso xuduudda ayaa si gaar ah waxa looga hirgelin doonaa jasiiradda Lamu halkaas oo sanadii hore weeraro dad badan ay ku dhinteen ay ka geysteen xarakada Al-Shabaab gudoomiyaha jasiiradda Lamu Ciise Taimami ayaa sheegay in dhismaha gidaarkaasi la dhameyn doono dhamaadka sanadkan aan ku gudi jirno isagoo xusay in ujeedku yahay sidii looga hortagi lahaa weerarada ka imaanaya xarakada Al-Shabaab sidoo kale wuxuu sheegay in darbigani weyn uu ka caawin doono sidii looga hortagi lahaa dadka sida sharci darrada ah ku soo galay gudaha dalkani Kenya bilihii June iyo July ayaa weeraro waxa ay ka dhaceen deegaanada xeebta ee Lamu waxaana ku naf waayay oo halkaasi ku dhintay dad gaaraya ilaa 90 ruux kadib markii Al-Shabaab ay weerartay deegaanka Mbikotoni iyo tuulooyin kale oo ka tirsan gobolka xeebta ee dalkani Kenya iminkana Uganda guddiga doorashada dalka Uganda ayaa shacabka Ugandiiska ugu baaqay inay qaataan kaarka diiwaangelinta ee doorashooyinka ka dhici doona 2016 dalka Uganda dhawaan ayay ahayd markii ay dawladda Uganda ogolaatay inay dadka ajnabiga ah ee Soomaalidu ku jirto siiso dhalashada dalka Uganda ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay guddida doorashada dalka Uganda lagu shaaciyay inay isa soo diiwaangeliyaan qof kasta oo haysta dhalashada dalka Uganda oo da'diisu gaadhay 18 sano dadka dhawaan la siiyay dhalashada dalka Uganda ayaa la rabaa inay codayn doonaan doorashada dalka Uganda ka dhici doonta 2016 waxa sidoo kalena laga codsaday laamaha sharciyada ee dalka Uganda inay si degdeg ah u siiyaan kaadhadhka aqoonsiga dadka dhawaan loo ogolaaday dhalashada dalka Uganda ee ay Soomaalidu ku jirto gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray inay jiraan Ugandan badan oo aan isa soo diiwaan gelin qaadana kaadhadhka aqoonsiga qaranka ee la isku diiwaan gelin doono gudoomiyaha ayaa ka codsaday dadka aan wali ka soo xaadirin xarumaha diiwaan gelinta inay si degdeg ah isku soo xaadiriyaan yimaadaan xarumaha la isku diiwaan gelin maxkamad ku taala magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ayaa xukun 6 bilood ku riday la taliyihii hore ee ciidamada Uganda u qaabilsanaa hawlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya faafaynta qodobkaasina waxa inoo haysa wariyaheena Farduus Axmed Bedel maxkamad ku taal dalka Uganda ayaa la soo taagay la taliyihii hore ee ciidanka Uganda ee qaybta ka ahaa hawlgalka nabad ilaalinta AMISOM Colonel Benson Olania ka oo ay maxkamaddu ku riday xukun ah 6 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay dambi ah in shidaal loogu talagalay hawlgalka AMISOM uu iibsaday Olania ayaa xabsigiisa ku qaadan doona xero ciidan oo ku taala xaafadda lagu magacaabo Makenda oo ku taala duleedka magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda gudoomiyaha maxkamadda xukunka riday oo ka hadlayay xukunka ayaa sheegay in go'aankan uu yimid kadib markii uu Colonel Benson uu qirtay dambiga lagu soo eedeeyay sidoo kalena gudoomiyaha ayaa sheegay in dambiyada noocan oo kala ah
ay ku yihiin ciidamada ka howlgala Soomaaliya muuqaal aad u foolxun ayna u qaateen go'aanka in ay hagaajiyaan sawirka ciidamadooda Soomaaliya ka howlgalaya. Korneelkan ayaa hadda soo dhameysan doona 6 bilood oo xabsi ah kadibna waxaa la sheegay in la furi doono baal cusub oo dacwad ah oo loo haysto ka oo noqonaya in uu geystay falxad gudubnimo bini'aadanimo ka dhan ah. sida uu dhigayo sharciga ciidamada Uganda, askarigii lagu helo dambiyada noocan oo kala ah waxay mutaysanayaan 2 sano oo xabsi ah iyo in laga saaro ciidamada qalabka sida ee Uganda. Fardowsi Axmed Bedel, Kalson TV, Nairobi. waa tahay waxa daawadayaal intaasi nagaga dhan wararkii aanu idinka haynay bariga Afrika oo si toos ah idinka imanaya magaalada Nairobi. warkana waxa idinla socodsiinaysay anigoo Igla Saalax. haatana u diyaar garooba xubinta ciyaaraha warka Kalson TV. ودلنا سعودين دونو وريهنا موليد ورسمي كلنا